waxaan ku guda jirnaa safar socdaal aan ku daraasanayno xaaladda guud ee abaaraha gobolka Sanaag khaasatan gobolada bariga siiba gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Elafweyn iyo sidoo kale Garadag deegaanada ay xukumaan imika waxaan ku sugannahay deegaanka Bixin odaygan imika dhinacayga taagan waxaan ku soo dhaafay jidka isagoo laba tildood wada iyo nirig yar bal adeer horta marka hore geel intaad lahayd arise intaad lahayd ari waxaan la geel waxaan lahaa 40 waa gartay waxa ka haray 3 waa gartay ariguna 50 buu ahaa waa gartay 60 baa ka haray waa gartay dadkuna de irsaaqada Ilaah buu cunaa waa gartay raashimada caalamka laga keeno ee dadku dawladuhu iyo islaamku bixiyo anagu ma aragno kormeena nooma yimaado meeshaanu joognana cidi nooma timaado halka degantii waxaanu deganahay Bixin deegaankani bal dadka u sheeg xagu hoos yimaada wuxuu hoos yimaada deegaanku wuxuu hoos yimaada Elafweyn waaga iyo Garadag waaga iyo Ergaabo waaga saddexdu waxayna yaadeen waxba idin ma hayno waaga gudoomiyaha gobolka iyo maayarada iyo ka warma la sameeyay la sameeynaado waxayna yaadan waa idin imanaynaa waxba nooma iman wax noo yimaada ma noo arag Elafweyn baan tagay niman xun oo hadii la yiraahdo afara oo la yiri gudida abaaraha weeye nimanka anagu wax allaale waxaanu ka haynaa ma jirto waaga waxaanu diraynaa waxaana ka qabto nimanka gudida lagu sheegay abaaraha la codsanayo abaaraha wax loogu soo dhiibay nin walba isaga jeebkiisu ku shubtay hana ka qabto gudida hana ka qabto yaan waxba naloo ku dhiibin islaamka dawladdu ha qaybiso baan leenahay siciid inanka mushaaradiisi ma hayno 12 bilood buu gaariga ka shaqeynaya ambalaaska Garadag weeye mushaara lama siiyo 7 caruur leeyahay iyo naag aqal kiraabu ku jira biyuu doonaya mushaara lama siiyo waxaan madaxweynaha ka codsanaya ninka in mushaaradiisi degdeg loo siiyo aabihiisanahay waa indhalaahay adduunkiiga dhamaa isagaan wax la cuni jiray وحين ما هينو مدحوينانا waa soo ducaynaya ilaahay madaxaagana haraajiyo nin wanaagsan baa tahay cadaabkiina la ka xoroyo waxaan ka codsanaynaa ninkii daalina ee sid islaamka islaamnimada ka bayda alla xiro hala xisaabtamo markii hore Garadag baa ka soo gurtay Garadag baan ka soo guray Garadag baan way waxa uu kamid yahay dadka abaarta kala hayaamay xoolihiisii ee uu raray daaqsinta tigsinta dheer ee buuraleyda gobolka Sanaag si uu uga baxsado xaalufka ba'an ee soo wajahay deegaanadii bananka ee uu markii hore ooli jiray waxa uu iga warramayaa xaaladda iyo sidoo kale xaqiiqada dhabta ah ee duruufta nololeed ee deegaanka buuraleyda Qacab iyo sidoo kale dareenka uu la wadaago dhammaanba guud ahaanba dadkii reer guraaga ahaa ee bananka ka soo hayaamay isla markaasina ka soo baxsaday abaarta horaanteedii hore عبد الرحمن إسماعيل سعيد بولشة TV Elafweyn